caaqil Rashiid Jaambiir ayaa si adag uga hadlay hadal dhowaan ka soo yeedhay Suldaan Xasan Suldaan Cabdiraxmaan oo ka mid ah salaadiinta Somaliland. Suldaankan ayaa hadalka ka jeediyey xaflad lagu saarayay magaalada Burco ee gobolka Togdheer ayuu ka hadlay gobolka Togdheer waxa uu insha Allah tacaala ka jecel yahay hadal qaybo fara badan isugu jira qaybihii hadalkaas uu isugu jiray waxa ka mid ahaa in gaar badan oo laga dheehanayay farxad rayn iyo hambalyo uu u dirayay in uu ku sheegayay in uu socdaalkii kan ka horeeyay ee uu ku yimi Burco wixii uu doonayay uu ka helay markhaatigeedina uu cad yahay oo uu jeeday hoggaanka maanta talada haya waa la raagay buu yiri inaan farxadda ka qayb qaato salaanta aan la soo gaadho walow waan suldaamada mar walba wada joogno qaybo kale ahayd oo tirtirsi ah qaybo kale ku jiray oo kala fogeyn iyo kala faqooq bulshada Soomaaliland aad ay uga muuqanaysay hadalladaasi waxaan islahaa 13 November wixii ka dambeeyay way dhamaadeen waxay nagu reebtay xanaf iyo hadalla aan munaasib ahayn oo hawada la isu mariyo waxaanay ku eegayd waqtigii dhawaaqista commissionka inay ku dhamaato haddaan hadalladii soo qaato ama aan wax ka taabto Suldaan Xasan Suldaan Cabdilaahi uu ka jeediyay goobtaasi marka hore wuxuu u mahad celiyay isagoo aad u faraxsan oo aad u reynaya wuxuu u mahad celiyay beesha bariga Burco oo ku tilmaamay in ay abaalkii celiyeen ama ay hagbadii iska soo bixiyeen suldaanku waxa aad u cajiib badneed oo hadalladiisa ku jirtay waxa uu soo qaatay qiso dhex martay isaga iyo nin haybtiisu ay tahay gumbuur waxa laga yaabaa dadka Soomaaliga ku hadla gumbuurka suldaanku sheegay inaanay aad u wada garan marka laga reebo beelaha dhexe laakiin haddaan sii balbalaariyo wuxuu ahaa nin habar yoonisa suldaanka dhowr goor buu ku celiyay waxaan ku yiri abti dabadna maalintii dambe ayuu inankii igu yiri war halkeediga abti suldaan xageediga abtisanaysa aniga reer daahiro habar jeclaa way dhalay maadiga anigu aan abti ku ahay maya ee jeegaanta ku dhashay buu qisa labaadna suldaanku uu soo qaatay wuxuu nin Cimraan nin isaguna isla raaskaas inanka hore ah oo isagana Cimraan dhalay ayaa isagana aan abti ku yiri buu yiri markaasuu ninkii ku yiri war anigana dhowr goor buu suldaanku abti igu yiri xagu iga abtisanaya waanu jawaabo waxaan ku yiri waa jeegaanta horta magaca suldaanku uu hirgeliyay ama uu sida fiican daaha uga rogay iyadoo horeba bulshadu u ogeydo ay daah ay u haysay ee Maxamed Nuur Ladane GTN TV Hargeysa.